iyadoo roobkii guga ahaa uu ka curtay deegaanka gobolada iyo degmooyinkaba ayaa saaka subaxdii hore waxaan wax ka weydiinay qaar ka mid ah shacabweynaha ku nool caasimadda deegaanka ee magaalada Jigjiga sidee shacabka deegaanka uga faa'iideysan karaan wax soo saarka dhanka beeraha iyo xilliga lagu gudo jiro xilli roobaadka waxayna dhaheen alxamdulillah deegaantiina inoo bilaabatay bulshada waxaan dhihi lahaa maxay ahayd maadaama abaaro fara badan deegaanka ay ka soo jireen gacantaada ayaa lagu cilbaxay inay deegaanku aan wax beertaan aad baan ugu boorin lahaa waliba bulshada xoolo dhaqatada iyo kuwa magaalada joogaaba ninkii dhul haysta inay dhulka beertaan oo dhulka wax lagala soo baxo ilaahay baa isaga subxaanahu wax yar oo 2-3 xaro masaga lagu ridaa dhulka ilaahay intaas oo kun oo masaguna ka soo saara halkii saboolka inta masagulahay marka inay dad ka faa'iideystaan ayaan oran lahayn oo gacan bilaadan la dhowrin gacan bilaadan baahi laga ma baxo marka aad baan ugu boorin lahaa roobkana ilaahay noo soo siyaadiyaan dhigi lahayn magacayga waxa la Ibraahim Sheekh Maxamed Ali marka magaalada Jigjiga qabalka toddobaad baan joogaa yaan deganahay maadaama roobku uu curtay oo meel walba waxa way roobkii biyo dhiqada aan la marin laanahay dadka waxaan u sheegaynaa oo looga baahan yahay inay sameeyaan inay ka faa'iideystaan roobkaas ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun marka waxa weeyaan cirka roobka iyo biyaha ka daahayo dadku waxay ku noolaan lahaayeen Ilaahay ka soo saaraya marka ardadii dhimatay buu Ilaahay ku nooleynaya marka dadkii dhintay ee waxa weeyaan waxba soo saarin inay ahaa saboolka ya hadday ka faa'iideystaan waxa weeyaan waxay kala soo baxayaan waxa waxa weey ayaga iyo awlaadoodii iyo waxa weey dadkoodaba ay anfacaan oo maxay ahayd ay ku noolaadaan baa ka soo baxaya marka aad iyo aad waxaan ugu baraarujinayaa dadku inay roobka ka faa'iideystaan nicmadu waxa la yiri markay joogto lama garta baa markay ka tagto baad garan abaar iyo jilaal kaliya haduu yimaado dhibaato kale haday timaado marka aan baa la garan oo maxaan uga faa'iideysan weynay baa la dhayaa marka shalaytada intaysan imaan waxaan dhihi lahaa hal laga faa'iideysto roobka iyo nicmadaas Badri Ibrahim Shaqali waxaan ka mid ahay shaqaalaha dawladda degmada Waqooyiga Jigjiga Haroreys waxaan ahay professorka clusterka Yosle waxa ii rogan 25 saac ayaa rogan dhinaca beeraha waxa roobkina si fiican ayuu ugu daay hadda waxaan rabaa inaan beero hadii Ilaahay yiraahdo inaan seedka basasha iyo galeydaba inaan beero bulshada Soomaaliyeedna waxaan ku baraarujinayaa inay ka faa'iideystaan roobka iyo beeraha si fiican inay uga faa'iideystaan waayo wax soo saarku waxa weeyaan awoodda ugu badan ee dhaqaale aan ka helno sidaa darteed waxaan bulshada ku baraarujinayaa inay xoogga saaraan maadaama bulshadu ay u badan yihiin xoolo dhaqato beeraley waxa loo baahan yahay waxyaabo fara badan dhinaca balka xoolaha marka la yiraahdo faa'iido ku leedahay beertu dhinaca midhaha markii la yiraahdana faa'iido ku leedahay beertu marka marnaba waxaan dad iyo dunyatoona laga maarmi kareynin dhinaca faa'iidooyin badan laga gaadhay dhinaca basasha ayaan la xoogga saara maadaama lacag fara badan laga helay sanadii aan soo dhaafnay sidaa darteed waxaan bulshada ku baraarujinayaa inayna gacmaha laabanin ha ka faa'iideystaan beeraha ka faa'iideystaan dhulkooda ha ka soo saaraan wax ayaan leeyahay anigu ayayna gacmaha laabanin Mas'uul Cabdiqaadir Faarax wararka Nabad TV magaalada Jigjiga